kumanaan qoys oo ka soo hayaamay in ka badan 5 gobol oo ku sugan deegaano hoos yimaada Buuhoodle waxaa soo wajahay duruufo baahsan oo dhinaca nolosha ka saameeyay sida biyo la'aan dadka iyo dunyada haysa caafimaadka oo liita iyo la'aanta cunto dadka ku filan dadka intooda badan waxay degan yihiin baadiyaha baliyada kulmiye bali'uus iyo deegaano kale oo dhamaantood hoostaga tuulada xareeranka waxayna ka soo hayaameen gobolada Sanaag Togdheer Sool iyo qaybo kale halka qaarkoodna ka yimaadeen kililka shanaad ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya hay'adda maxalliga ah ee Somali Aid Society ee magaceeda loo soo gaabiyo SAAS xafiiskeeda Buuhoodle oo ka duulaya baahida dhinacyada badan ee ka jirta deegaanadaasi ayaa gurmad u fidiyay qaar ka mid ah dadka halkaasi ku dhibaataysan iyagoo oo geeyay kooxo caafimaad oo ka kooban 5 kuwaasi oo daaweynaya nafaqo u sameynaya dadka sidoo kale carruurta talaalaya gurmad biyood iyo dhar iyo timir ayaa sidoo kale la gaarsiiyay dadkaasi waa kuwan howlwadeenada SAAS oo ka warbixinaya dhibaatada deegaanadaasi ka jirta iyo waxa ay qabteen waxaanu gurmadka abaaraha ugu nimi annagoo isku dhan xafiiska SAAS bahda caafimaadka ee gobolka Buuhoodle tuulooyinka ah Hagogane Meegagle Qoriley Kulmiye iyo Bali'uus dad dayacan oo halka ugu nimi dibadeed waxaa halka hay'adda SAAS ay ugu qaybisay iyo bahda caafimaadka wada socda nafaqadii biskudiiqi biyihii timirtii dharkii iyo talaalkii waxa meeshan ka jira waxa weeyaan arin af aan laga sheeg karin naagaha cabirkoodu uurka wuxuu marayaa 15 17 16 ayuu marayaa ilmaha yar yarka marka cabirka gacanta la saaro waxay marayaan 12 biyo ma haystaan cunto ma haystaan waxa inta dadka wadada soo qaar ka mid ah ka yimaadeen gobolka ugu shisheeyay Ceerigaaba ka yimaadeen Sanaag qaar waxay ka yimaadeen Sool qaar waxay ka yimaadeen Togdheer qaar waxay ka yimaadeen kililka shanaad qaar waa deegaankii Buuhoodle marka masiibada rabbaaniga waxaan oran lahaa waxaan leeyahay allaha awoodda baa badbaadin kara laakiin gurmad bay u baahan kulmiye agaarkiis wada waa qiyaamo meeshan wax ka badan soo qofto dawaab laga dhamaa meel walba adarksan baasho yaala dadka waxa ugu daran oo hayo aad ugu daran waxa weeye dadka qofa iyo suban iyo dhisikariya haysta dadka mas'uuliyiinta SAAS ayaa sheegay in gurmadka deegaanadaasi gaaray iyo baahida jirta aysan isu dhigmin iyagoo baaq u soo jeediyay cid kasta oo gacan ka geysan karta dhibaatada taagan sida ay sheegaysa madaxa xafiiska SAAS ee Buuhoodle Mulga Dolaal waxaanu ka codsanaynaa ummadda islaamka meel kasta ay joogto inay dadka dhibaataysan ee islaamka soo caawiyaan annagu heli karaynay maanta waanu keenay qaar ka mid ah dadkii gurmadka loo sameeyay oo ka soo hayaamay deegaano kala durugsan gobolka ayaa ka mahad celiyay gurmadka loo fidiyay SAAS yaa noogu tagey biyo iyo adigu dawo iyo wixii ay heli karaan waxaan oran karaa waa hay'ad mahadsan ilaa baa mahadle yana waa mahadcelinayaa SAAS baa noo keentay Khadar Cawl Ismaaciil telefishinka caalamiga ah ee Universal Buuhoodle